الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. waxaan dhex joognaa masjidka degmada Yaaqshiid Masjid الرحمن oo runtii meel fiican maraya aad waxaan ugu faraxsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed ee guddiga masaajidka ka ahayd juhdiga weyn ee masaajidka ka soo qabteen Ilaahay miisaankooda xasanaadka Allah u saaro intii hore u dhiibatayna waan u ducaynaynaa Ilaahay inuu barakeeyo caruurtooda iyo maalkooda maalinta qiyaamahana Ilaahay jannatul firdaws inuu guriyo uga dhiso maadaama beyd Ilaahay ay dhiseen inta hadda aan la wadaagi doono ee dhamaystirka laga rabo inay soo dhamaystiraanna inay u soo kala hormaraan beyd Ilaahay waa la hubaa uu dhismaaya laakiin aan dadka la wadaagno in laga qayb qaato ayaan baaqa u jeedinaynaa masaajidku maalin ugu dambeeyay ayuu marayaa marka in hadii dadka markaasi arki doona meesha uu maraayo waxa loo baahan yahay inuu yahay agab lagu dhamaystiraayo oo qaybo masaajidka kamid ah oo aan mutalaalkii wali la dhigan ay jirto inta hadda aan fadhino wuu dhigan yahay alxamdulillah marka intii badnayd waa la dhigay laakiin inta dambe oo gogashii iyo meelaha yaani u baahan in la sii dhamaystiro ay dhiman tahay ayay culimada iyo guddiga masaajidku yaani la soo wadaageen oo dhaheen baaqaas inaad nala jeedisaan oo ummadda aad khayrka nala tustaan ayaan idinku yeernay waan kalsoonidaas iyo in khayrka laga wada qayb qaato ay muujinayaan oo ku mahadsan yihiin ummadda Soomaaliyeed guud ahaan bariyahan dambe waxa lagu arkay oo baraarug ah inay masaajidada iyo arrimaha danta guud ee dadka ka wada dhaxaysa inaan loo kala harin oo ayagu ay sameystaan hadii bariyii hore laga sugi jiray dad banaanka inaga ah inay masaajidada inoo dhisaan ama dugsi quraan inoo dhisaan ama hawlo kale inoo qabtaan waxaan isweydiinay dadkaasi waxa wada muxuu yahay ay masaajid u dhisaayaan ama dugsi quraan u dhisaayaan ama danta guud ee ummadeena ay qayb uga qaadanayaan islaamnimadaas wada ee ajirka ay ka raadinayaan maxaa inaga inoo diiday inaan ajirkaas inagana dhinaceena aan ka qaadano marka ajirka qaadashadii waxay soo saartay ummaddu markay isku tashato oo halalkeeda dollar ay isku darsato dadka Ilaahay uu waxsiiyayna sidii muxsinkii booska u gaday oo kale oo hal mar yaani $30,000 bixiyay taasi dadka waxay taariikhan soo xusuusinaysaa quraanku markuu soo dagaayay oo arrin ku saabsan in Ilaahay dirti wax loo baxsado dadka loogu yeero inay dadkii khayrka badnaa ay dhihi jireen yaani qof walba meesha uu ugu jecel yahay ayuu sadaqada ka bixin jiray sidii beertii la dhihi jiray bayruuxa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu wareejiyay oo aayadan quraankan ay ku soo degtay lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun yaani waxa aad jeceshiin markaad bixisaan yaad samafalka iyo khayrka aad gaaraysaan marka sidii ayaa tanaafuskaas iyo arintaas ay u dhacday oo ummadeena Soomaaliyeed khayrka iyo masaajidada way u soo kala hormaraan marka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala masjidkan inta dhiman waa khitaamuhu miskun waa gabagabadii iyo meeshii ugu dambeysay qofkii yaani aan fursad u helin inuu bilowgii la bilowdo oo inta uu la soo socdo maanta ay fursadiisii ay u taagan tahay muddo yar oo ka bacdi insha Allah asagoo oo lagu tukanayo masaajidkii oo la furay ayaan xafladiisa isugu imaan doonaa inta aan la soo xirin in la soo gabagabin waaba la hubaa in masaajidkan uu dhameystirmaayo dadka Soomaaliyeed ahlu khayrka ah markay arkaan inay ka soo jawaabayaan oo waxyaabaha loo baahan yahayna ay guddiga la soo xiriirayaan oo ay yaani dhameystirayaan marka maadaama ay saas ay tahay qofka Ilaahay uu waafajinaayo inuu masaajidka wax ku darsado waa karaameyn asaga la karaameynaayo ma ah yaani Ilaahay inuu dadka u baahan yahay oo kaali gurigeyga ee dhisa oo Ilaahay uusan gurigiisa dhisan karin ma aha Ilaahay gurigiisa uu dhisanaya dadkan asaga ayaa abuuray qalbigoodana asaga ayaa haya masaajidkiisa inay dhisaan qalbigooda asaga ku soo ridaya quraankana waa lagu amaanay dadka yaani khayrka ka qayb qaata oo marna waxa la yiraahdaa su'aala man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaa'ifu lahu ad'aafan kathira ya Ilaahay wax amaahinaya ama deyminaya oo Ilaahay uu laban laaba kadib markay ka soo jawaabeen rag iyo haweenba amaana iyo hadana loo soo gudbiyo waxa leeyahay innal musaddiqiina wal musaddiqaati wa aqradu Allah qardan hasanan yudaa'ifu lahum ajruhum yaani kuwa oo wax sadaqaysay oo rag iyo haweenba isugu jira ilaa waxay ka jawaabeen baaqi hore aha ya Ilaahay dirti wax u baxsanayo Ilaahay khayrkan uu soo yaani beedkiisa ama meel khayr loo qayb qaadanayo ya wax ku darsanaya intii ku darsatay oo ah rag iyo haween oo wax sadaqaystay waxa kuwaas ayaga ah waxa ajirkoodina waa loo laabaya Ilaahay agtiisana ajir weyn oo wanaagsan ayay ku leeyihiin marka marna waa ala shakli su'aalo ah maanta waxay taagan tahay masaajidku dhameystirmaayay yaa qayb ka noqonaa inuu dhameystiro marka uu dhameystirmaan oo xafladii la gaarana waxay noqon doontaa insha Allah inta isugu imaano
in aan warbixin laga bixiyo sidii looga wada qayb qaatay oo ammaantaas ilaahay baaba ammaanay dadka wax sadaqaystee loo soo jeediyo dadkii hawshaas qabtay oo ilaahay dartiina u qabtay bayd ilaahayna dhisay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa in uu inaga dhigo dad diintiisa u khidmeeya oo masaajidkiisa u khidmeeya oo khidmaynta diinta loo khidmeeyana qofka ayay dan ugu jirtaa oo ilaahay uu ku karaameeyaa ilaahay dadka uu ka maarmaa yaa ayuha nnaasu antum alfuqaraa'u ila allah dadoo idinkaa ilaahay u baahnida ilaahay aan u baahannahay sidaan ilaahay wax uga heli lahayn waa markii aan ka jawaabno sida uu inoo diray maalka ilaahay baa iskale asalkiisa dadka hayana waa maamulayaal oo maalka ilaahay uu lahaa ayay maamulayaan inta ay nool yihiin markii ay dhintaanna kala qaybinta la kala qaybinaya ama dhaxalka sharcigaa loo daayaa oo innaga doorka aan ku leenahay waa qof walba intii la siiyey ilaahay uu siiyey inaan u kala dhiibno ee inagu ma xadidayno kan meeqaa la siinaayo iyo kan meeqaa la siinaayo ilaahay baa xadiday maxaa yeelay maalka ilaahay baa iska lahaa qofkii maamulaya markuu ka tagana ilaahigii iska lahaa ayaa maamulanaya qofkan hadda inta uu nool yahay maamulayana waxaa lagu yidhi waanfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiihi wixii wakiilla idinkaga dhigay ee ilaahay ood wakiilka uga ahaydeen ee maalka ahaa bixiya marka qof shirkad wakiil u ah oo la yidhi lacagtaas bixi hadduu bixin waayo shirkaddu tallaabay ka qaadaysaa waxay leedahay shaqadii ma gudanayside shaqada waa lagaa eryaayaa marka dadka ilaahay uu maalka u dhiibay waxay shaqaale u yihiin oo maalkan ay u hayaan ilaahigii maalka ay u hayeenna wujuuda khayrka iyo wanaagga oy masaajidadu ka mid yihiin ha lagu bixiyo ayuu yidhi qofkii bixiyana asaga ayaa ka faa'iidaya oo adduun iyo aakharaba ilaahay uu ku siinayaa adduunkana sharaf iyo qiimo maalkiisana ugu barakaynaya aakharana janno uu ku siinayaa qofkii wax bixin waayana oo sadaqada ka gaabiyana ilaahay wuxuu yidhi waman yabkhal fa innamaa yabkhalu can nafsih qofkii ka bakhaylo oo wax ka qayb qaadan waaya cid uu wax ku yeelay ma jirtee asaga khayr u soo socday iyo ajir uu heli lahaa unbuu asagu iska xayiray marka waxaynu ku baaqayna wuxuu yahay ajirka yaan la iska xayirin maanta ayaa fursad la haystaa dadku hadday geeriyoodaan oo in dib loo soo noqdo ay tamaniyaan maba la soo noqonaaye waxaa la qofku waxyaabaha ugu horeeya ee uu inuu qabsado uu jeclaan lahaa waa inuu wax sadaqaysto saasaa ilahi wuxuu yidhi waanfiquu bixiya mima razaqnaakum min qabli an ya'tiya axadakum almowt fayaquula rabbii lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib ilaahay maxaa dib iigu dhig weydood ii dishay oo halkaas su'aal ay imaanayso haddii dib laguu dhigi lahaa maxaad samayn lahayd waa tukan lahaa muuna dhihin xajkaan aadi lahaa muuna dhihin wuxuu dhahayaa haddaad dib ii dhigi lahayd fa asadaqa waxbaan sadaqaysan lahaa marka xilli fursaddu ay taagan tahay oo in wax la sadaqaysto ay tahay ayaynu joognaa aan ka faa'iidaysanno dadka culimmada ah ee barnaamijkan u soo diyaariyena waan u mahad celinaynaayoo wax khayra oo danteenna adduun iyo aakharaba ay ku jirto ayay horteenna soo dhigeen innagana kuwii ka faa'iidaystay ee ka qayb qaatay allah inaga dhigo aad iyo aadna waan ugu ducaynaynaa muxsiniintii mutabarriciintii soomaaliyeed ee ka qayb qaatay ilaahay qof kasta oo wax ku daray ilaahay ha ka aqbalo ilaahay miisaankiisa xasanaadka allah u saaro maalkiisa allah ugu barakeeyo carruurtiisa baari allah uga dhigo aafooyinka iyo balaayooyinka iyo waxyaabaha dhacaya ilaahay ha ku garab mariyo beydkaas ilaahay dadka isu kaashaday oo ku kulmay oo jannatulfirdows ilaahay uu ku kulmiyena allah inaga dhigo hada wabillahi tawfiiq sal allahu calaa sayyidina maxamed